waxay bixinaysaa marka dugsiyada ama macaahidda diiniga ardada ka soo qalin jibiyo mutuuntii soo xifdiyo sidaas oo kale culumtii barto waxay siinaysaa shahaadadaasi oo aqoonsi u ah meel uu tagana dalka ka mid ah laga aqoonsanayo sidaas oo kale haddii uu dalka ka baxana ay aqoonsanayso cid allaale ciddii dowladda soomaaliya ee aqoonsan sababtoo ah tii barahadii ayaa ku bixi doono oo runtii shaqada aad qabanayso mar haddii ay jirto nidaam haddii uu jiro nidaamkaasi waa mar waliba isaga ayaa mar waliba in aad shaqada uu qaban lahaa ama aad qabanayso lagula og yahay sidaas oo kale dalladda horumarinta waxay qabanaysaa isku xirka iyo nidaaminta xarumaha diiniga meelaha diinta islaamka lagu barto way fara badan yihiin masaajiddaa ka mid ah mawlacyadaa ka mid ah oo sida walaalkii sheekh cabdiqaadir uu sheegay in runtii ay tahay meelaha ugu fiican ee ummaddeena soomaaliyeed iyo dhammaan caalam islaami laga soo kabay mawlacyada meelaha ay ku soo barteen waa meelaha in la isku xiro laga warqabo haddii ay jiri lahayd in xoogaa qofo meel xoogaa waxay u leexsan lahayd in la iska warqabo adduunku wuxuu gaaray horumar in gurubaysi la sameeyo haddii la idhaahdo waa xisbi fulaan haddii uu jiro ilaa wax badan la sameeyey oo waa dhalinyarada gruubka dhalinyarada maqnaysaa ilaa heer waxaa la sameeyey la idhaha gruubka garoobada soo ma waa jirta laakiin ilaa hadda ma jirto gruubka odayaasha ma jiro odanimada lama jeclaan male laakiin dadka dhalinyarada jecel yahay gruubka odayada weli lama arkin sidaa darteed in la isku xiro laga warqabo howlahaas oo dhanna la isku xiro xarumaha diintana iska warqabaan si wanaagsan xiriir uga dhexeeyo shan waxay qabanaysaa dhisitaanka dhulalka waqafka ah ee laga dhisaayo dugsiyada qur-aanka macaahidda diiniga iyo masaajidda waa shaqooyinka dalladda ay qabato in dhulalka waqafka ah haddii ay tahay in laga dhiso dugsiye qur-aana sidaas oo kale haddii ay tahay in laga dhiso macaahid diini ah in laga dhiso masaajid waa shaqooyinka ay u taagan tahay sidaas oo kale dalladda horumarinta culumta islaamka waxay qabanaysaa ama shaqooyinka ay qabato waxaa ka mid a siminaaradaasi oo mar waliba bulshadeenna muslimka ah 100% muhiimadda u leh haddii ay tahay dhanka macalinimada turuq tadriis oo kale haddii ay tahay wacyigelinta haddii ay tahay alkhitaab aljamaahiriya sida khudbadaha loo aqriyo iyo dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah bulshadeenna sidaas oo kale dalladda horumarinta culumta islaamka waxay qabanaysaa tartamada diiniga oo insha allahu haba ugu badnaato bilaha ramadaanka oo kale ramadaanada tartamada la qabto oo kale aad bay u qabataa sidaas oo kale haddii ay qabanayso tartamo kalena ayadana sidaas oo kale waa ay qabanaysaa shaqooyinkaasi ayaa ugu muhiimsan dalladda horumarinta culumta islaamka ay qabato lama soo koobi karo guud ahaan laakiin gaar ahaan inta ugu muhiimsan waa inta xafladaan aynu joogno qiimaha noole mar waliba allah subxaana wa tacaala ayaa naga soo qayb geliyey ayaan u mahadcelinaynaa sidaas oo kale dhammaan inta kasoo qayb gashay culimadayna ugu horeyso waan u mahadcelinaynaa waxaan insha allahu noo xigi doonaa ama qaybaha dambe guddoonsiinta shahaadooyinkaas oo ardada la guddoonsiin doono laakiin maamulka madrasada uu ii sheegay shahaadooyinka ardada ilaa 15 arday ayaa marka hore loo soo gudbiyey dalladda in shahaadooyin loo sameeyo kadib laakiin waxaa soo baxay arday kale oo iyagana shuruudihii ama waxyaabihii ka dhinaa dhammaystirtay shahaadooyin in loo sameeyana u baahan laakiin waqtigii laga gaari waaye iyagana insha allah dib baa looga samayn doonaa cudurdaarkaasna insha allahu maamulka waa la wadaagaynaa dib ayaana loo samayn doonaa waxaa kaloo jirto ardaydii 15 ka mid ahaa isagana sawirkiisii kii la rabo uusan noqon sidaa darteed tii marihii dalladda uu ka dhiman yahay isagana insha allahu dib ayaa loo samayn doonaa waad ku mahadsantihiin culimadeena sharafta leh sida sheekh xasan iyo sheekh cabdisalaam inay noo soo istaagaan shahaadooyinkana ay nala guddoonsiyaan ardada taasaan ka codsanayna iyagoo mahadsan waxaa ugu horeeyo nasiib u yeeshay shahaadadooda ay u soo baxday ardayda la yidhaahdo naciima cumar moxamed
ويسوي يستاجد وأنت جسم موجود ولا يستاجد وأنت haddana waxaa xiga ardayda lagu magacaabo Faatima Cumar Muhammad waxaa inoo xiga ardayda lagu magacaabo Asma Cabdiraxmaan Isxaaq ardayda xigta waa Xaliima Cumar Muhammad ardayda xigta Xamiida Maxmuud Muhammad حميدة وددها الله فوق سيادة كان بريد كوكو بناش أرتقي حقا محمد عبد الرحمن حسن أرض يحيى أحمد عمر أحمد أرضيته حتى وأميرة علي أحمد سوجي صح سوجي سوجي سبحان وهي أرضي حاجة وعبد الشكور أبو بكر محمود وهي أرضي حاجة وزينب موسى مصطفى هذه بداية حفظها الله وهي أرضي حاجة ونور عثمان عبده الشيخ نور وهي أرضيته حتى داغا موسى محمود وهي أرضيته حتى ونعيمة محمود أحمد
وحديث وانا نوسو جيد وهي أرض يحيى عبد الناصر عبد الله محمد وهي أرضي حتى ونصطيحة عمر محمد أرض يحيى عبد الكافي طاهر نور aad bay u mahadsan yihiin ardadayna qiimaha leh iyo waalidiintii ku tacaala miisaankooda ha u saaro kuwa allah subxaana watacaala darajaadka jannada uu soo raacsiiyo iyadoo allah subxaana watacaala waxba uusan ka nuqsaamin ajarkooda ayaan allah subxaana watacaala uga baryaynaa ardayga xiga waa maxamed deeq salaad muxamed oo ahaa ardaygii cudurdaarkiisa ay soo gudbiyeen maamulka oo ahaa in sawirkii kii la rabo uu noqon waayey laakiin shahaadihiisa waa la guddoonsiin kadibna sawirkiisa ayaa loogu dhejinay محمد داق وإنتاس أيام نقول دمادين شهادوينكي الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكالا بالله ويا دماد كدبنا إن شاء الله برنامج كقريريها أيام كور الجناسة سكر محنوم هذولنا يا أرددا runtii waxaad joogo ardada qayb ka mid ah sida aan dareemayno madrasada ardada dhigato allah subxaanahu watacaala ayaa barakeeye marka insha allah kuwa maqan iyo kuwa joogo iyo kuwa hadda kadib kusoo biiri doonaba waan u mahad celinaynaa barnaamijka waxaa nooga dhiman insha allah waxaan ku wareejin doonaa xiriiryaha هذه هذا المسؤولين المشايخ ذا مسؤولية رابطة ذا سدا ونحسن إنه أرضي الوقوع بين شهادين كأي صاحبته وحكنا نمر إن شاء الله تعالى قبل قبائل جبنا وحيا عكس يا نسوي ذي إن والدين تقارك مذا يخلون معلم كودي إن هديب جنسيان يعني المشايخ ذا يا خيار تهرت يكون جنسيان مركب فرصة عن سيد إن شاء الله هو أنفي هذا صديق بعد كده بعد كده توسع خليك معنا labada gacan ku qab macalin حياك الله حياك طيبة تبغى الهزيلة كيف بس غير معلن كذا هدية قال أي بدوسي ما شاء الله أيد يوالد كذا قرتين معلن كذا هدية بدوسي أنا هذه ما تسيني وانتظر شيء مدين إن شاء الله تعالى نحفلتي ونصل مرة إن شاء الله تعالى حنوغار نكلية إن معلمين معلن كمذا أنا ضدكي إسكالها الدعاء يهر مريت إسكالها معنا عثمان يقصد بنا إن شاء الله سوء نودعيه كدبنا قرآنك اختتامك أيان وحي صندوقنا إن شاء الله تعالى معنا عثمان تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معنا قلب كتابنا على وحتى بعض قلب كتاب القرآن تدريب معها القرآن تدريب معها هو آخر الديوانين وعنك الرسول على جيل آخر القرآن كإله يجيز الاتجاه نجي حتى رفض الله في سبيل الله إله القرآن وهذه أول شيء معنا نعيش كسر الجهل معنا الرجال معنا كان واحد حجر حسنات الله سيء الله كقصر وعندي شيء معلم في فاس حدا عن كتبنا وعندنا فاس حدا عن كتبنا ديس وحلا قدافي ديس وحلا قدافي الله كديو مش شويه من الملائكه مرت الله كديو الهي عزيز وجعل الله كديو من كيس من اخر في الجنه الفردوس الله كديو تبارك في الجنه الفردوس الله كديو صديق اله جنه من كيس دي جنه الفردوس الله كديو في كعب الدين ام يوغي الله كديو ولكن اله وكل غير كستانا ولكنها واحد اوبر وغير كستانا الله كديو انت ايمان اجر حسنات انت فوجات الله كديو انت بلاد كامل كديو انت كل جالس وقران كان ولد بقول مغفر ودرجات كل وقت الله درجات كل وقت الله درجات ذلك اذا حق الزيت الله سي انت فوق جالسن نيك لك حنوفيا نيك لك حرينيا نيك مال سفر وصال يوم بلاد اسلام كان دبني في انصار الله موجود في انصار الله موجود بعد كوري الله كديو في كور الهي كجلال الله كديو في نوي جلال الله كديو في شكر الله كديو في شكر الله كديو اولادي الله وبركه اولادي الله ويسر الى ابد الله وبركه على كديو ولكن اجر حسنات الله مسي معنا اباكي سمجول كر اور ایمان باوال کو سمجول كر ولكن اله وجود اجر حسنات الله نسي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا عثمان سيد الدعية الله وأقبله سيد الدعية الله وأقبله إن شاء الله مركز قبل جوجنا نحن كسو حردنا حفلة دينا قرآن كان كفر قرآن إن شاء الله تعالى مركز قرآن كمركز الآخرنا إن شاء الله تعالى أن يرينا هذا قلب وناكسنا كل إنسانه نحن ميكروفون سيدنا إن شاء الله تعالى مع محمد نور أو قرآن كنا آخر دونا بجمع القرآن وبجمع الروايات والقراءات إن شاء الله تعالى أن ستة عنه لجيسنه أن بوق يرين إن شاء الله تعالى سلوا معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
وترى الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم dhammaan aad iyo aad u mahadsan tihiin mashaayikhda sharafta leh iyo macallimiinta sharafta leh iyo magistarafka dhammaan iyo waalidiinta aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan nalan ka rabaa waxaan leeyahay mashaayikhda ha ahaadaano magistarafka ha ahaadaano waalidiinta ha ahaadaano macallinka dugsiga ha ahaado ardayda ha ahaato macallinka hadda qur-aanka noo akrinaya macallin maxamed nuur ayaa la yidhaahdaa jamcu الروايات العشرة طبعا كإن لبرت أيام الربع هذا أنا وحنا أخرنا عن رواية أيام أخرنا أولي بقى يدنا أنت بقى تفكرين وعنا نقرب إن شاء الله تعالى معنا قصة جمع الروايات وسمي سنة كذا إلى وصل إلى أيام نقرب إن شاء الله تعالى دمار وحال لي هذه يوم ما سنتين ما شكوا القول الذي تحريون هذا ولا سمك الرأي هذا لابو هذه لو وعاو في الذين يلقوا أيقو فعله ويران حتى أي بدل لقوا ضد ما لا فديسي حتى أنبياء الله سنين وأدي هذا وتعسيرنا تازنا سمانتي والله سنتين إن شاء الله ما تشرف كاستاجايو دكسلو ويا معلم سعيد دكسلو ويا وأزود بيننا إن شاء الله تعالى أدي ما سنتين